Squid Game nolol ama geeri 456 qof oo laga rabo inuu ka soo haro hal qof. Taxanahan South Koreaanka ayaa qabsaday shashadaha 10 maalmood ugu dambeysay isagoo noqday number 1 in ka badan 90 wadan. Sidoo kale 95% daawadayaashiisu ay ka baxsan yihiin South Korea. Haddii aad ka mid tahay dadka daawaday filimkan, waxaad markhaati ka tahay qulqulka dhiigga, argagaxa iyo naxdinta meesha ka socota, iyadoo dadka qaarkiin ay u arkayaan inuu xiise gooni ah leeyahay. Haddaba muxuu yahay taxanahani? Kumanaan ay qisay diinta iyo lacag la'aantu ayaa la isugu keenay meesha, waxaana loo ballan qaaday lacag aysan weligood ku riyoon haddii ay ka badbaadaan dhammaan ciyaaraha, taasoo ah inaad dhimatid ama noolaatid. Haddii aad ku guulaysatana waad guulaysatay, haddii aad khasaartana waad khasaaraysaa oo waad dhimanaysaa. waxaana la ciyaarayaa waa ciyaarihii carruurta South Koreaanka. Taxanahan ayaa qiyaastii soconaya 9 saacadood oo naxdinteeda wadata, taasoo dhammaan tooreeynta, toogashada, isdilka ay ka dhacayaan bannaan cad oo ay yaalaan alaabta carruurta ku ciyaarto. Qoraaga sheekada filimkan ayaa yiri, ma ahan dadkani dad xun kaliya, waa dad quus taagan kuwaasoo si nafurisa isugu dayaya inay madaxooda ka saaraan jabka. Si tan u hirgashana, waxaan u soo bandhigaynaa ciyaartan oo fursad qaali ah oo ay ku rumayn karaan wax walba oo ay leeyihiin, taasoo inay ciyaaraan gamekan. Tartamayaashana waxaa la siinayaa ikhtiyaar inay tagaan ama joogaan. Xaqiiqda ayaa ah in tartamayaashan ay dooranayaan inay ku sii jiraan qololkan jirdilka ee lagu cadaabayo. Tanina waa eedayn loo soo jeediyay bulshada casrigan oo lagu soo bandhigay nolosha mugdiga. waxaa ka sii daran xadgudubka, cadaalad darrada iyo arxan darrada. Tartamayaashuna ay diyaar u yihiin inay u adkaystaan ama u geystaan kuwa kale. waxay u noqonayaan halbeeg lagu cabiro xadgudubka, cadaalad darrada iyo arxan darrada, mararka qaarna adduunka dhabta ah ka dhaca. tartamayaasha falalka iska caabinta iyo isku xirnaanta iyo inay guuleystaan iyaga oo jilicsan waxay ku tusinaysaa mararka qaar xeeladu ay ka fiican tahay xoog. Squid Game wuxuu muujinayaa nolosha oo dhammi in aysan ahayn iftiin iyo macaan, taasoo badalkeedu ay tartamayaashu ku fakarayaan intaysan halkan imaan inay bannaanka wax wanaagsan ku qabsadaan.